iyadoo oo si weyn looga dareemayo guud ahaan badalka gaar ahaan caasimada Soomaaliland ee Hargeysa qabanqaabada xuska maalinta qaran ee 18 May ayaa qaar ka mid ah shacabka Soomaaliland ee ku dhaqan magaalada Hargeysa isla markaasina ka soo laabtay qurbaha waxa ay shacabka Soomaaliland ugu baaqeen inay si weyn u muuneeyaan maalinta qaran ee 18 May oo ah maalintii Soomaaliland la soo noqotay xorriyadeedii luntay sanadkii 1960 waxa ayna muwaadiniintani ay ugu baaqeen shacabka Soomaaliland inay si weyn ay uga qayb qaataan dabaaldegga maalinta qaran iyagoo ka waramay sooyaalka taariikheed ee maalintani iyo sidoo kale halgankii hubaysnaa ee SNM guulihii ballaadhnaa ee laga gaadhay shacabka Soomaaliland ayaa ay sidoo kale ugu baaqeen inay ilaaliyaan adkeynta nabadda iyo sidoo kale xasiloonida isla markaana waxa ay ka sheekeeyeen horumarka ballaadhan ee Soomaaliland ku talaabsatay muwaadin oo kala Cabdiraxmaan Axmed Shunuf iyo Najiib Axmed Shunuf ayaa shacabweynaha reer Soomaaliland ugu baaqay in si farxad leh ay u xusaan 18 May nabadoodana ay ilaashadaan wareysigan ay siiyeen telefishinka qaranka Soomaaliland ayaa waxay sheegeen in Soomaaliland muddadii ay jirtay ee ay wax weyn oo aynu dad iskaga celinay oo wadan ku sameeysanay wadankeena maanta cirka maray uu leeyahay dekada leeyahay oo uu leeyahay shidaal oo maanta aynu marayno dawlad garanaysa wax qaban karta marka waxaan leenahay dadku waa inay ka soo qayb galaan annaga dareenka way been ugu xidhantay calankeenan 18 May ga halkan laga taago oo inuu dabaal degno marka maalin yar ma aha waa maalin loo baahan yahay in iskuuladoo dhan lagu dhigo curriculumkeeda in xitaa bisha dhan in qof walba Soomaaliland la siiyo oo aqal walba la soo hordhigo oo dadkana la wada fasax waxaan u marin lahaa dadkeenan qurbaha oo dhan waa inaad isku duubnaataan oo soo baxdaan oo dareenkiina muujisaan keen intayna muujinayna Soomaaliland waa one Soomaaliland waa dad nabad ah Soomaaliland hal tago investment hal lagu sameeyo lacag hal la geliyo imika DB World ka waxa ay noo gelisay berbera shirkadihii Mareykanka petrolka kuwii Taiwan waa kuwa inoo wada imanaya halkan baa la iskugu imanaya halkan baa khayraadkii adduunka oo dhimi ku jira halkan baa dalxiiskii adduunka oo dhimi ka kooban yahay waxaynu leenahay ilaa iyo 170 goobood oo dalxiis aynu leenahay oo ka soo bilowday ilaa Sayla oo masaaridan malaayiinta dadada ay tagaan teenan baa ka gabowsan anigu laftarkayga taariikhda archaeologist baan ahay marka waxa halkan yaala ma yaalaan Masar iyo meelaha adduunka kala oo dhan